رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأصلي وأسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام أمير الأنبياء وإمام المرسلين. صل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وصحابته الغر الميامين. وارحم اللهم مشايخنا ووالدينا وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين. آمين آمين آمين. أيها الأحبة الفضلاء، عاوة waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in aan la joogo walaalahay, asxaabtaydii, culimadaydii, in aan la joogo, in aan idan kala soo hadlayo, dacwadana aan kala qayb qaadanayo meel ka baxsan dhulkii aan ku noolaa ee aad iga barateen. waxaan joogaa wadanka Denmark, magaalada Kolding, madrasatu tawxiid. Allah barakeeye. walaalayaal, mawduuca aan doonayo walaalaha inaan caawa kala qayb qaato waxa weeyaan siduu ilaahay noo jeclaadaa. gidigeen waxaynu u ordaynaa, u dadaalaynaa, qof walbaaba uu u ordayaa siduu ilaahay ku jeclaan lahaa. ma jeceshin ilaahay inuu idin jeclaado, inaad noqotid the one, ninka ugu dhow allihiina abuuray, khaaliqiini. ma jeceshin? jawaabtiinu hadday haa tahay shuruuday leedahay. qofka ilaahay uu jecel yahayna waxbaa lagu gartaa, calaamadaa jira. ma leedihiin calaamadihii? miisadaa ma leenahay? ma jeceshin ilaahay? gidigiin adaan kula hadlaaya gabar yahay, gabadhaan hor fadhidaan la hadlaaya, aabbahana la hadlaaya. haa, adiga isu eegayaan la hadlaaya. ma jeceshahay ilaahay? ma hubtaa kaaga kursiga ku fadhiya? gabadhaa haa, adiga weeyaan. ma jeceshahay ilaahay? haddaad ilaahay jeceshahay, waxaan kuu sheegayaa calaamado lagu garta qofka ilaahay uu jecel yahay. ma leedahay calaamihiin? gidigiin addoommada ilaahayow, iska baarbaara calaamadahan aan idiin sheegi doono oo lagu garanaya qofka ilaahay uu jecel yahay. jacaylka ilaahay iyo faa'iidadiisa caawa rabaa inaan idin kala hadlo. gidigeen nafsadayda ugu horeysa iyo nafsadihiine. walaalayaal, waxaan idiin sheegayaa, idin xusuusinayaa aayad qur'aan ah, cajiib ah. aayadda ku celceliya mar walba si aanu u cayrino, nolosheenana uga saarno ibliisu laciin lacnatullaahi calayh. nooma ogola sida iyada ah. ilaahay ayaa wuxuu rasuulkiisa ku dhahayaa subxaanahu wa tacaala, wuxuu ku dhahayaa rasuulkiisa sala allahu calayhi wasalam, qul in kuntum tuxibuuna allaha fattabicuunii. isoo raaca. waxaad ku tiraahdaa ummadaadan, dadkan sheeganaya in ay jecel yihiin ilaahay, qof walbaaba aan laga xigsan karin, ee dhahaya allaan jecelnahay, ilaahay waa jecelnahay, waa allihiina abuuray. dadkan la kala saari la'yahay ka ilaahay jecel iyo kan kale. waxaad ku tiraahdaa, haddaad ilaahay jeceshihiin, calaamadaa jira, imtixaan baa jira. fattabicuunii. waa in laga helaa alitibaac waliqtidaau birasuul sala allahu calayhi wasalam. ma lagaa helaa adig? ma lagaa helaa rasuulka? ma ku dayataa rasuulka? ma raacdaa? waa calaamada ugu horeysa, ugu weyn weeyaan. gabadhaada ma jeceshahay ilaahay? haddaad ilaahay jeceshahay oo jacaylkaagu dhab yahay, ha lagaa helo itibaac, inaad raacdid rasuulkaaga. ma raacdaa rasuulkaaga? ma raacdaa oo dhar xirashadaada rasuulka ma ku raacdaa? mise timahaagu waa qaawan yihiin? hadday timahaagu qaawan yihiin, waxaan ku leeyahay ma aadan raacin rasuulka. calaamadii waa lagaa waayey, imtixaankiina waa ku dhacday. hadday gabadhu jiinis xiran tahay, waa laga waayey, ma raacsan oo aad leedahay ilaahay baan jeclahay. ilaahay ma jeclid, wallahi ilaahay inaadan jeclayn. odaga sidoo kale, haddii xilkii iyo mas-uuliyaddii loo dhiibay uu dayacay oo uu leeyahay ilaahay baan jeclahay, waxaan ku leeyahay ilaahay ma jeclid. salaada haddii dhalinyaradu ka tegayaan oo aad ka tegaysid salaada, aad leedahay ilaahay baan jeclahay, waxaan ku leeyahay ilaahay ma jeclid. ilaahay ma jeclid.
wiilka hadduu sigaar cabayo qaad cunayo daroogo isticmaalayo maandooriye qaadanayo oo uu leeyahay ilaahay baan jeclahay marka loo sheego uu oynayo waxaan leeyahay ilaahay ma jeclid maxaa wacay sifooyinkii waa lagaa waayey qul in kuntum tuxibuuna allaha ilaahay baa dhahaya rasuulkiisu usoo marinaya sala allahu calayhi wasalam u sheeg ummadda nebi moxamed u sheeg khaasatan ummadda soomaaliyeed u sheeg ceeble iyo caasho cawrale iyo cadday maryan iyo u sheeg maaragtay ubax u sheeg moxamed iyo faarax nuur iyo cali cabdullaahi cabdiraxmaan u sheeg intaan i hor fadhida adigoo ilaahay kula hadlaya soo ma ogid haddii aad ilaahay jeceshihiin rasuulku wuxuu idin leeyahay ilaahay wuxuu leeyahay rasuula waxaad ku tiraahdaa isoo raaca anig waa kuma kan la raacaya waa muxamed ibni cabdillaahi ibni cabdilmutalib ibni haashim ibni cabdimunaaf sala allahu calayhi wasalam ma ku salaysa rasuulka isoo raaca waa in laiska helaa raacid oo rasuulka la raacaa see loo raacaya oo loogu dayanaya waxaa loogu dayanayaa waa in marka hore rasuulka aad siiradiisii barataa oo aad jeclaataa jiifkaaga waa inuu noqdaa jiifkii rasuulka allah gacantu waxay qabanayso uu noqdaa islaami muxamedi waa inuu noqdaa wixii iyo hawsha siduu rasuulku u qaban jiray hadalkaaga waa inuu noqdaa hadal طayib man kana yu'minu billahi walyawmi alaakhiri falyaqul khayran aw liyasmut hadalkaaga ma wanaagsan yahay walaalkaa hadal fiican ma ku dhahdaa asxaabtaada hadallada ma u wanaajisaa hooyaday aabbaha ma u naxariisataa dariskaaga hadal wanaagsan ma dhahdaa adigu hadal wanaagsan ma isku dhahdaa marka iyada rasuulka waad raacday waad rumaysay ilaahayna waad jeceshahay waa kaaga markhaati kacaya laakiin haddii kale maya man kana yu'minu billahi walyawmi alaakhiri falyaqul khayran aw liyasmut ilahay aayad kale wuxuu ku leeyahay waquluu linnaasi xusnan ilaahay haddaad jeceshahay rasuulkaaga waa inaad raacdaa oo ku dayasho uu kuu noqdaa teeda kale gabadhaadan xiranaysa surwaalka ee ragga iska dhigaysatay maha gaabsatay afka guduudsatay sida dawaca dhiig soo cabtay gabadhaadan haddaad leedahay ilaahay baan jeclahay ilaahay ma jeclid maxaa wacay rasuulkeena wuxuu leeyahay salawaatu rabbi wasalaamuhu calayhi dadka ugu horeeya saddexda ugu horeysa cadaabka la geynayo waa maxay waa gabadha isnimaysa oo ragga iska dhigta iyo ninka iska dhiga waa maxay haween iska dhiga timaha tidca dhagaha durta silsilad xirta codka yareeya isjajabiya sida haweenka iska yeela waa dadka ku qanci waaya abuurkii ilaahay khaasatan gabadhan saraawiisha xiranaysa timaha gaabsan ragga dhex ordaysa aan iska sooceynin ikhtilaadka badan codka waaweyn murqaha leh aadan kala garanaynin hadday sii jeedo ma rag baa mise waa dumar ilaahay jaceylkiisa yaan laga been sheegin ilaahay been looma sheegi karo ogsoontihiin allah yaclamu khaa'inata alacyuni wamaa tukfi suduur wuxuu ogsoon yahay isha khaa'imada dhaalimada ee sheegashada badan ilaahay baan jecel lahay ilaahay waa rabnaa rasuulka waa ku dayanaa diinteenna oo haddana beenta isha ilaahay waa garanaya wuu ogsoon yahay wamaa tukfi suduur iyo wax laabyaalka ku jiro kaagan surwaalka uu ka dhacdhacayo barida qaawan ee cawradii adkayd asturila surwaalkii u dhacayo halkii gaabi la yiri halkii astur la yiri qaawiyay halkii gaabi la yirina hadda dhulka uu xaarayo oo surwaalkii gadaal ka dhamaaday qashinkii magaalada oo dhan uruurina isbisiiniga kale ilaahay ma jeceshahay kulata ilaahay ma jeceshahay sidaas oo rasuulkeena اتباع لغا هلو ويان قديجين نفسدينا iyo nafsadiinuba waxaan kula dardaarmayaa in laga helo maxay اتباع in laga helo in aan rasuulka salawaatu rabbi wa salaamuhu